maxaa Soomaaliya ka khaldan sida hadda aan ku soconno haddaan ku soconno 20 kilomitir oo badahaan hadda la yaabanahay dad Soomaali la yiraahdo halkan deganaa jira waliba halna waa idin sheega Soomaalidu assimilationka aad ay ugu sahlan tahay inay dadka ku milmaan aniga cabsiyaan ka qabaa. by the way cabsidaan oo ka sheekeynayo aniga dad waxaan aaminsanahay haddii Ingiriiska Soomaaliya uu hadda Somaliland uu la joogi lahaa wax fara badan dhul fara badan in loo sameyn lahaa wax fara badan loo sameyn lahaa wadaadkan cawaran mid idaysa isku eegaya barbaynu ku muamro waa ka weynahay aniga qof weyn baanahay xogagal baanahay abuse baa la isku hayaa caruurta xitaa abuse bay ku hayaan waa kan marka shakhsiyan u hadlo xukun la isku haysta iyad ka hadlaysiin indhaha fiiriya aniga wadankan aan cabsi u qabaa wadankan aan joogno yaan cabsi u qabnaa yaa laga cabsanaya kamsar cagaar baa nagu soo duulay basal baa halkaa naga soo eegaysa yaa nagu soo socota hayaay kaarota xaggaa nooga soo buud abeen iyo barbagado waxay rabaan inay bangiyada iyo xawaaladay ka wada dhigteen bangiya meesha ma hayaan qof kale inuu dibadda uga yimaado ma ogola kaindhaha la bay rabaan xerooyinka ugu jira diin waxba ka garan waayeen kuwaas diinta dadkii xoogii markay isku waayeen bixita qaar al-shabaab galeen qaar siyaasadda galeen qaar qabiiladii bay galeen ma rabaan dad inay shaqaystaan rabo ma midka indhaha saa isku eegaya baana raban inuu amro dhalinyartii yareed meed wax baratay anaa ka weyn ii fadhiiso waa kana markaa mana u maleynaayo meel Soomaaliya climate change ka waxa la yiraahdaa dhulal baa biyaha ka hoos mari doona meel Soomaaliya inteeda kale intay biyaha ka hoos mareen Puntland ku bulaalayso maskaxdeeda aanu hadda kama keeni karo sida daraadeed wanaaga Puntland oo laga soo sheegay waxaan jeclahay odayaashii hore oo mataqaanaa ii sheeg qaarkii madaxda noo ahaa jiray shimbirlaay iyo mataqaanaa ii waa bug waxa kama jiraan marka saana la isku haystaa qaar kalena halkaan ay u maraysaa si wadankeena maxaa ka khaldan oo video ayaan kula wadaagaya Allah ciid badan camha ila fiiri marka meeshan doorka haweenka ayaa ku qoran waa arin haween ku saabsan laga hadlaya dumar badan ayaa ka soo qayb galay xildhibaano kamid yihiin dumarkii la hadlaya waa kuwaas waxa ka soo qayb galay sidaas oo kale waa gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka haweenka aan kugu socodiyay wasiirka haweenka asaga backgroundkiisa waxa weeyaan inuu askar iyo wixii midka uu yahay waxa loogu dhiibay jagadaasi oo u qalmo u yaqaano maxay 4.5 ku jooga meesha ilaa baan kugu dhanshay ka waran qof walba marka 4. ninkaan waa nin ma jarteena kii kale wadaad xawaalaab waa fagaara ma aragtaa ya wax balida waa wadaad baa la leeyahay garka muu loola soo baxay siyaasadda reerkiisa umuduulaya sidii caadada ahayd ya markaas 4.5 hadda nooga sheekeynaya wasiir meel kale u fiican buu qalbay maxaa wasiirka haweenka looga dhiga 5 طبعا meel lagu geeyo wixii asaga uu yaqaan laga leexiyo macnaheedu waa maxay waa qof yaqaan ilkaha sida loo nadiifiyo oo loo dhiibay wadnaha inuu qaro waa sidaas oo kale umadana maxaa ku tahay intay u socota kada waxa loo leeyahay waa tan oo kale tabtan umadan hawiye daarood ma jarteen hawiye daarood oo meesha iska haysta waliba dee anigu waa daarood markaan dhahayo dhalinyarta yaryar ma odayaal asaasaqay oo aan laga kicin karin meesha ayaa fadhiya waa dhiman laayihiin waa socon laayihiin dhalinyartii soo kacdana mabda'ooda waxay ka dhaadhiciyeen in ay magaranaysaa mabda'a ay sameeyeen loo hirgeliyo waa la isku wareysan yihiin dhalinyarta yaryar daarood maaha waxa wey dhalinyarta kale ma garato waa odayaasha waaweyn dhalinyarta ma aha waa odayaasha waaweyn fikradihii ka dhex guuxayay de markii waxay kusoo aqliyeysteen moogtay siyaad baro madaxa leeyahay maxaa loo taago leeyahay walaalayaal waa Abyssinianka sheekada haysato kale Abyssinianka ma ogola Amharo iyo Tigray ma ogola inay Oromo maamusho marka halkaan labada reer baa jooga cid kale waxba ogola history cid inay siyaa waxba ogola
wax ilaa la qaybsadaba oo gala waa hadda marka way isfahansan yihiin marka labadooda isqaylinayaan waxay rabaan in ay dadka kala soo kaxaystanayaan waryaa anagana soo raaca anagaa soomaalinimada naqaana may anagaa madaxnimada naqaana may anagaa ma garanaysaa dadku dhan nala degayiin oo caasimadeeda naloogu imaada yay u dowladeynayaan sidii caadada ahayd. Mr. Ambassador, welcome to Minnesota. It's odd that a Somali guy is welcoming you into Minnesota. Somali American kuma daray. But we can all appreciate the work you're trying to do and the reason you've been here. But one thing I would like to add to a different angle is that I hope your visit is different this time. It's ninkan waa nin majeerteena saad u ogaataan not the visits that we were familiar with, in the sense that, you know, senior officers or high-ranking folks come to Minnesota, have their 1 or 2 nights, and then they go back, and we have not seen results. So the only thing I'm gonna resultiga ayaa laga sugayaa markaa ma dowladda Soomaaliya ama dadkaaga waa ninku odhanaya aniga gurigayga imaad ii soo nadiifisid moogta ani waan garan lahaa. Say to you today is that we hope and we will see results from your meeting today with the different faces of the Somali community, be it the older folks or be the younger, the professionals or the community at large. The people here are hungry. They're hungry for stability. They're hungry for a place to return to. They're hungry for something to hold on to. isaga Maraykan buu degan yahay wax far badan kale oo Soomaaliya hadda anagu ma baahnin runta marka laga hadlayo laakiin dadka meesha ku nool inay helaan stability oo ma garanaysaa meel ay ku noolaadaan qofkaas anaga ee Soomaaliga ah ee wadamada kale ku nool Soomaaliya wuu imanayaa jawgadiisun buu tahay maahe lagama yaabo long time inuu qomeel uu ku noolaan kara ay tahay because caafimaad ma laha sanitationka iyo nadaafadii ma laha biyahooda dee waa kuwaad arkaysaan mas-uuliyadii dhulka lagu iyo mas-uuliyadii dhulka laga qodayaa biyihiina dhulka laga qodayaa soo isma taabanayaan marka caafimaad daraba ka imanaysa ma garata xitaa youthka xitaa ma garanaysaa xitaa Soomaaliya markaa tagto qoraxda kugu dhacdo waxa weeye xitaa waad gabowga xitaa dhaqso kugu soo ordaya marka ma dadkaan ma rabaan laakiin qalbadoodii ba xagga joogto. And it's odd the United Nations actually does represent that for us. So that's all I'm going to say here today. ma dareemaysaa wuxuu leeyahay United Nationka inay wax noo qabatay ahayd United Nationka needskaaga kama shaqayso iyo wax rabitaankaaga kama shaqayso waa inaad adigu communitygaaga isku saxataa moogta. Let me say in Somali what I said in English. waxaan iri mudane ambassador waxaan jecelahay maanta inaad noqoto booqashadaada mid ka duwan booqashooyinkii hore oo noolagu imaan jiray ha ahaa dadkiisa sare madaxdaha ama dowladaha ahaadaan ama ha ka socdaan international organizations and in la yimaado Minnesota iyo Ohio iyo became part of the waxay noqotay process marka inay ka duwanaato una ogaado markaan in aanu rajaynayno aanu filayno results inay ka imaato booqashadiis. Thank you very much and welcome. si fiican buu hadlay laakiin wuxuu hilmaamay inuu Somali American yahay dadka la xisaabtamaya ayaa waxay tahay madaxda anaga dooranay anagana mana matalaan waxaad arkaysaa nin walba oo social media soo fadhiista ninka in adeerkiisa inuu difaacayo anaga markaa ma oran karno qof kale oo ajnabi ah oo kula xisaabtamaya qofka ajnabiga aad leedahay oo kula xisaabtamaya oo dadkaaga aad la xisaabtami kari weydo maxay taas ku tusaysaa failure inaad tahay ku tusaysaa saaqid inaad tahay bay ku tusaysaa sidii caadada ahayd halkan ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.